magacayga cabdixakiin ibraahim cabdullaahi waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda muqdisho ka qalin jebisay 2003 bilowday 1999kii qaalaha maamulka qaybta maamulka ee ka qalin jebiyay jaamacadda muqdisho waxay ahayd yani bilow aad u wanaagsan oo horumarkii mustaqbalka ee dhinaca shaqada dhinaca waxbarasho sare la sii aado furo u ahayd 2003 markaan jaamacadda ka qalin jebiyay waxaan shaqo ka helay hay'ado caalami ah iyo hay'ado dalka ah waxaan shaqo ka bilaabay hay'ad la dhaho Forum for Peace and Governance oo la shaqeyn jirtay hay'adaha Swedish International Development Agency, Norwegian Refugee Council. marka waxaan fursad u helnay inaan waxbarashadeeni isticmaalno oo aan ku horumarno kadibna waxaa shaqooyin kale inta ka helay dawladda meediyaha waxaan ka mid ahay ardaydii ama dadkii fursad u helay inay dalka dibaddiisa aadaan waxaan ku noolahay dalka Norway waddanka Norway markaan tagay waxaan soo bandhigay amaba aan dalbaday inaan jaamacado kale aan galo ama shahaadadeeda la aqoonsado waxaa fursad la ii siiyay inaan imtixaano galo imtixaanadaas oo sahlay in jaamacadda muqdisho la aqoonsado shahaadadeedii waxaan bilaabay waxbarasho sare oo ku saabsan arrimaha nabad dhisidda iyo xalinta khilaafaadka iyo xuquuqul insaanka shahaado jaamacadeed oo sare aan ka qaatay dalka Norway kadibna waxaan bilaabay master oo la dhaho democracy building jaamacadda Bergen University marka fursadahaas waxbarasho iyo helitaankeeda waxaa furo u ahay in aan shahaadada jaamacadda muqdisho haysto oo aan ahay arday yani wax soo bartay oo loo aqoonsaday shahaadadiisii inuu wax ku sii barto markaad Yurub wareegto sida Sweden, Holland, Norway, Ingiriiska waxaa la kulmaysaa arday badan oo jaamacadda muqdisho ka baxay kuwaas oo amaba shahaadadoodii ku shaqaysto amaba يعني جامعة كلامته سيجري أو واحد سيبرتي أو قاتي شهادة ماستركا دلك مرة بدن كسولاتي وحنتج حفيز بدن الدولة حفيز برايفت سيدا بنكية سيدا حفيز الدولة وسريو حنا كل ما اللي يرب بدن أو جامعة مقدسة كبحي كوان سوفصل هين أو عن يعني سو جروب هين سو وقت قليل جبني إيوه كوا بدن أو نقدم بي أو أرضي نقدم بي كبحي صندوق الدم بقى oo kulli ka wada shaqeeya hay'adaha dawladda iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay waxa kale intuu arkaysaa in dhalinyaro badan oo ka shaki qabo waxbarashada dalka sidee ay ku suurtagelaysaa in fursad aan uga helo dibadda ama dalka taas waxay tusaale u tahay annaga oo ah yani arday badan oo dalka ka qalin jebiyay oo jaamacadda muqdisho ka baxay ayaa meel kasta joogo wax ku waxbarasho dheeraad sii wato amaba shaqeeyo dal iyo dibadba taasi waxay fursad u siinaysaa shakiga ahaay anaga xitaa markaan bilaabin jaamacadda waxaan u jiray sidee ku dhacaysaa yani waddan burbur iyo dagaal iyo ku jiro haddaan ka baxna sidee ay u suurtagelaysaa inaan shaqo ku helno laakiin waxay noqotay furihii nolosha oo maalinka jaamacadda ka qalin jebinay waxaa helnay shaqooyin waxaa jiray xataa arday ayagoo jaamacadda dhigto fursado shaqo helay oo maalinkay ka qalin jebiyeen fursadahooda shaqada ama waxbarashadooda sii watay marka jaamacadda muqdisho waxay la tartamaysaa jaamacadaha caalamka jaamacadaha dalka Norway ku yaalo kaleento waxaa jira jaamacado ay xiriir la leeyihiin jaamacad waxaa jirta Tromsø University oo ku taalo waqooyiga Norway mar la xiriiray waxaa lagu xujiyay kaliya masterada bilaabaysna luqadda Ingiriiska imtixaan u gashay kaliya taasi waxay sahlaysaa in shahaadadaada aad ku baran karto in aad ku horumarin karto waxbarashadaada marka waxaan rajaynayaa ardayda kale daneynaya inay jaamacadda muqdisho ku biiraan waxaan ku dhiirigelinayaa in ay ka shakinin yani waxbarashada dalka ay ku dadaalaan maadaama ay arkayaan tusaalo nool oo dalka jooga ama dibadda joogaba ay labadaba heli karaan kulliyado badan oo kala duwan oo waqtigan annaga aan joognay jaamacadda lahayn ku soo biiray sida aan markaan jaamacadda ku wareegay oo aan arkay aniga waxaan ka mid ahay ardaydii jaamacadda xilligii ay
socotay waxbarashada jaamacadda ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay markas khidmatul mujtamac waxaa kaleento oo aan ka mid ahay ardaydii dhagax dhigga jaamacadda muqdisho cambaska ku yaalo yaaqshi ku yaalo ardaydii dhagax dhigtay xafladii dhagax dhigga ka mid ahay annaga waxaan wax ku baranay jaamacadda qayb ku taalay Sinai meeshaasoo 4 sano aan wax ku baranaynay caqabado badan oo jirayna aan kusoo gudbin sababtoo ah waxaan deganay Madiina waxaan wax ka dhiganay Sinai transportation ka hadda wadanka ka jiro ma jirin markaas marka hadda waxaa arkaysaa horumar weyn oo la sameeyay kambasyo aad u waaweyn aad u qurux badan tiknoolajiya casri ah marka ardayda hadda joogto waxaan isleeyahay waxay aad uga fursad badan yihiin ardaydeennii hore aad uga fursad badan yihiin macallimiin waxaan u dhigayay jaamacadihii dalka ka soo baxay oo ayagana dibadda wax ka soo bartay ama dalka wax ku bartay oo jaamacadihii dalka dhameeyay taasoo aad u tayo sareysay macallimiin kale intoo ajnabina waa jireen laakiin waxaa yani aan isdhihi karaa macallimiintii yani Soomaaliyeed fieldiyada hadda anaga dhaqaalaha iyo maamulka oo kale inta wax ku soo bartay jaamacadihii ummadda ee dalka in ay ahaayeen yani furaha quality-ga waxbarashada ee dalka gaar ahaan jaamacadda Muqdisho waxay ahayd furihii yani noloshayda sababtoo ah haddii aanan dhigan lahayn kulliyadan aan ka baxay ma heli lahayn fursad shaqo waxay ii sahashay inaan jaranjarada koobaad waxaan ahay qof jaamic ah jaamacad ka baxay jaamacadda Muqdisho ka baxay shahaado jaamacadeed haysto marka fursadii koobaad waxay noqotay inaan shaqo ku helo kadibna waxay noqotay in aan master ku diyaariyo shahaadadii jaamacadda shaqooyin badan oo maanta xataa shaqo raadinayo waxa ugu horeeyo oo miiskan saaraya shahaadadii jaamacadda Muqdisho